shirkadaha qaadka keenay waddanka Soomaaliland kana keenay waddanka Itoobiya ayaa waxay ku dhawaaqeen inay joojinayaan qaadka ay ka keenaan dalka Itoobiya sabab la xiriira cashuur xad dhaaf ah oo dawladda Itoobiya ku soo rogtay. Xasan Faarax Weerar Xasan Faruur waa afayeenka shirkadaha qaadka ayaa waxa uu ka hadlay sababaha ay u joojinayaan. Qaadka Soomaaliland kumaniyadii keeni jiray kuwii ugu waaweynaa iyo kuwii yaraaba go'aan shacbi Itoobiya qaadkaanu ka iibsan jiray kiilka afraad ee oromadu waxay yiraahdeen kiilogii jaadka ha $10 ku keena waxana LC-gu ahaa $2 markaas 8 baa la kordhiyay annaguna waanu diidnay laga bilaabo maanta 26 bisha soo socota 6deeda waanu joojinay qaadka waxaanu ka dalbanaynaa Kenya iyo Yemen waxbay inaga iibsataa xoolaha inaga iibsataa qofka wax ka iibsaday inaad wax ka iibsataa waa waajib Kenyana waxaan u raraynaa kalluunka yaga waanu sheegnay Itoobiya waxaanu ku nidhi bacadlaha iyagii 3 bilyan yaaleen waa kuwii gubtoo $1 ma hayna $1 doorow naga tag gobolka Oromadaana lugooyay jibriga iyo customka iyo ganacsiga Itoobiya sidaa awgeed ayaanu anagoo u dareynana dadka iyaga sixir bararka iyo abaartu ay ku dhacday aanu diidnay in ay lacagta Soomaaliland ku kacdo $1 Itoobiya geeyna $1 doonka sidaasi ayaanu ku wada hadalay dawladda Soomaaliland oo wasaaradda maaliyadda iyo customs-ku uu ka mid yahay qof loo cashuuri kara bisha 6deeda qaadka amba dalka keeni kara Itoobiya ma jiro dawladdu waxay noo soo dhaweysay inaanu Yemen ka keeno diyaaraddu Yemen ka soo qaata 30 mirir bay berbera u soo soconaysaa gobolada dhexe iyo kuwa bari iyo kuwa galbeed baanu u qaybinaynaa bari maroonguna Hargeysa wuxuu ka soo degayaa magaalada Leedha Laascaanood sidaa awgeed waxaanu faraynaa dadka Soomaaliland iyo kiilka shanaad ee Soomaalida inay dhulka ku foorarsadaan oo lacagta 500 milyan ee Oromo naga qaadaysa ay beertaan qudradda iyo qaadkaba waa isku mid kiilka shanaad iyo Soomaaliland waa dad isku mid oo isku hayba weey oo waxba kala lahayn oo wax wada loo tijaarta halkan joogtay kuwa jaadka wada labada dhanba way yihiin baacmisharigeeduna labada dhan way yihiin wajaalay ku eedeeyeen in lacagta $1 ay ka soo baxdo oo Soomaaliland soo gasho ma baabuur baa la saaray bangigooda ay ku jirtay niman Oromo ah oo qaadka diraa yiri annaga qaadka iyo qudradaba geynayno lacagtaada keenana diiday baanu niri kuwiina wajaalaan u taaganahay wasaaradda maaliyadda iyo amuuraha gudaha iyo tu walbana waanu isku ognahay Maxamed Cabdi Xariir waa gudoomiyaha shirkadaha ay ku buuhoobeen qaadku ayaa isna ka hadlay sababta ay u joojinayaan qaadka ay keen jireen Itoobiya iyo meelaha kale ay marayaan haddaan nahay shirkadaha jaadka waxaan go'aansanay jaadka Itoobiya inaan iska joojino laga bilaabo 6da bisha 7aad ayuu nageeyay waqtigaan qabsanay inaan joojino kadibna waxaan qaadka u doonanaynaa Yemen iyo Kenya anagu awalba shilinka iyaga wax ku soo iibsan jirnay deecid waxna ma isiin jirin qaadkii Itoobiya waqtigaas uu nageeyay xukuumadda Soomaaliland madaxweynaha wasaaradda ganacsiga maaliyadda cidii aan wada shaqayn lahayn ee mas'uuliyiinta qarankaana waxaan ka codsanaynaa inay noo fududeeyaan shatiyada iyo liisanada labada dal aanu qaadka kaga doonano oo aan ku soo dejino si degdeg ah noogu fududeeyaan aan ka codsanaynaa xubno kale oo ku hadlayay afka shirkadaha qaadka ayaa ka hadlay arrimahaasi waxaan farayaa inaanu joojinayno qaadkii Itoobiya bisha 6deeda 7aad sidaa aawadeed aanu ka keenayno qaadkii ganacsiga Yemen iyo Kenya dadweynaha waxaanu u sheegaynaa inaanu ayna ka nixin qaadka joojintiisa ee ay nagala shaqeeyaan